magacayga waa Maxamuud Al Cumar waxaan joogaa magaalada Tani Jowhar waxaan ka shaqeeyaa warbaahinta City saxaafadan waxaan ku soo biiray 2018 bishii saddexaad magacaygu waa Marin Maxamed waxaan ka socdaa idaacadda Hilis waxaan wariye ahay 5 sano magacaygu waa Yuusuf Bakar Ibrahim wakiil wareed 5 Somali TV ahna madaxa kaamiramanka warbaahinta City FM wariyaha wariyanimada waxaan ku soo biiray 2019 bishii shanaad waxaan shaqada warbaahinta muuqaalka ka shaqo bilaabay 2020 ilaa iyo haatan waan ku guda jiraa magacayga waa Xamda Mataan warbaahinta waxaan ku soo biiray 2015 ilaa haatan waan ku jiraa waxaan wakiil wareed u ahay telefishinka on cable oo aan u joogaa magaalada Jowhar magacayga waa Cabdullaahi Xuseen Daawud loo yaqaan Xilaaji waxaan ka mid ahay waxaan ahay wakiil wareedka Goobjoog TV saxaafadda waxaan ku guda jiraa muddo 6 sano magacaygu waa Faadimo Maxamed Shariif oo ka howlgashay warbaahinta City stuudiyada dhexe magaalada Jowhar waxaan ku soo biiray wariyanimada 2018 ilaa haddana waan ku jiraa magacaygu waa Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa wakiilka Dalsan TV gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale idaacadda City alxamdulillah waxaan ku soo biiray 2015 bishii 8aad warbaahinta oo xilligaasi aan ka hana qaaday magaalada Jowhar caasimadda dawladda Hirshabeelle warbaahinno kala duwan oo ka shaqeeya gobolka iyo waliba dalka Soomaaliya ayaan ka soo shaqeeyay oo marxalado kala duwan uga soo shaqeeyay wali hore ma aan uga qayb galin tababar ku saabsan xuriyadda warbaahinta waa markii ugu horeysay aan ka qayb galo waan uga mahadcelinaynaa SBS oo soo gaarsiisay wax badan ayaan ka faa'iido oo ay ka mid yihiin sida loo soo tabiyo doorashooyinka amniga iyo sidoo kale waxyaabo badan oo waxtar u leh kobcinta dhanka saxaafadda in badan tababaro badan waan ka qayb galay laakiin tababarkan mid la mid ah aan la barbar dhigi karo ma jiro maxaa yeelay waxyaabo fara badan ayaan ka faa'iiday hore ma aadan u qaadan tababar ku saabsan sidaan oo kale tababar magaalada Jowhar waa lagu bixiyaa tababarkan intaan soo qaatay tababarkan wax iga wanaagsan ama wax ka fiican ma arkin tababarkan kuwii hore wuxuu dhaamaa turxaan bixin fiican kan aan ka helay 3 maalin oo socdo tababarkan may hore maan u qaadan tababar noocan oo kale isku xirka suxufiinimada wilan ima soo marin tababar noocan oo kale tababar way jira laakiin tababar oo sidaan oo kale xoriyadda warbaahinta ma qaadanin waa markii ugu horeysay aan tababarkan qaato waa markii ugu horeysay aad u maasan tahay tababarkan dhowr nooc oo isugu jiray hore waa u qaatay badqabka wariyaha laakiin casharada kale ku saabsanaa ay bixinaysay SGS qaybtood maana soo qaadanay laakiin badqabka wariyaha hore waa u qaatay waxyaabo badan aan ka faa'iiday laakiin badqabka wariyaha sida safety-giisa amba waxagiisa ugu ilaaliyo ninka wariyaha marka uu ka soo tadinayo warar uu ka diyaarinayo goobaha dagaalada iyo mudaaharadada sidoo kale goobaha doorashooyinka sida uu soo tadinayo iyo waxyaabo aad u fara badan wax badan ayaan ka faa'iido oo ay ka mid yihiin sida loo soo tabiyo doorashooyinka amniga iyo sidoo kale waxyaabo badan oo waxtar u leh kobcinta dhanka saxaafadda waxyaabo badan aan ka faa'iidaystay ugu weyn aan inta badan u baahnayn aniga khaasatan aan faa'iidaysto waxa ka mid tahay qaabka loo soo tabiyo electionka ama doorashada tusaale markii tahay wariye soo tabinayo doorasho waxaa loo baahan yahay in aad labada qofood ee markaas tartamayo ama loolan oo ka dhaxeeyo campaign ku jiro inaad ka noqotid laba qof markaasi oo balance ah oo warbixin isku mid ka diyaar sidoo kale waxaan ka bartay inaan ka hordhicin natiijada doorashada ama dhibcaha ama sida loo kala horeeyo codeedka inaan ka hordhicin dadka si markaas warbixin been ay ugu qaadan waxaan kaloo ka faa'iidin in aad ka soo warbixisid goobta siday tahay goobta aad ku jirto ina sidoo kale aan soo gudbin karo qaabka madasha ama goobta doorashada ka dhacaysa sida ay tahay aan ka faa'iidaystay horta ma islaha tababarkan maalintii la furay iyo hadda sidaan ahay wax badan ayaa ka faa'iiday inkastoo ay badan yihiin wax aan ka faa'iiday badqabka nafsadeyda sidoo kale tabinta doorashada waxaan ka faa'iiday haddii aad la kulanto qarax qaabkii aad u jeelayd haddii aad aado goob dagaal ah sida aad u soo tawin lahayd iyo sida aad uga fakiri lahayd safety-gaaga ama amnigaaga ama noloshaada waxaan kale oo aan ka faa'iiday cashiro kale oo ku saabsan sidii aad u soo tawin lahayd doorashada ka dhacaysa deegaanka aad ku sugan tahay markaasi waxay rabto ha noqoto ama xildhibaan ama madaxweyne
ama guddoomiye hadba markii doorashadaas laga qabanayo magaalada. sidoo kale waxaan ku bartay inta aan baranayay cashirka ay bixinaysay ururka suxufiyiinta SGS sida loola macaamilo ama sida loo wajahayo banaanbax ama mucaarad ama muxaafad qaabka loo qabanayo ama qofka wariyaha ee looga baahan yahay in uu uga qayb qaato. waxaan ka faa'iiday wariyaha noloshiisa sida uu dhoori lahaa. waxaan ka faa'iiday marka shaqada loo socdo kalanto markii wax diyaarinta ama markii ay mudaharaad ama dadka markii mudaharaadayaan sidii loo iskaga difaaco ama sidoo kalanto markii ama safar u socotid waxa ma arta keed ahaan u watid oo macna aad naftada ku difaacdid tan ugu horeen oo marka in laga hadlo u baahan waxa waaye markaad macnaha aad meel aad ama macna ka socdo mudaharaad marka u socotid waa in mid ugu horeey waa in naftada ka fikirtaa intaas ka bartay ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee SGS waxaan horta hambali ugu dirayaa sidii tababarkani ay magaalooyinka maamul goboleedyada ay mar walba saan ay ugu wadaan wariyaasha daciifka ah ama kuwa discrimination lagu sameynayo ay sidii kor ugu qaad lahaayeen tababarkan aad uga mahadcelinayaa. way maasan horta ururka SGS iyo noqonin markii ugu horeysay iyo markii ugu dambeysay ee imaadeen magaalada Johor. waxaa jira dhalinyaro badan oo saxafiyiin ku jiro oo haddana aqoon lahayn sida hadda aniga markii tababarkan oo ku soo biiray iyo ka hor ismaliye Soomaan had wax badan ayaa ka faa'iiday. dad waxaa jiro iyagana inay wax ka faa'iidaan jecel laakiin fursad u helin. dhammaan waxaan horta u mahadcelinayaa ururka suxufiyiinta SGS madaxdeeda ee isku howlay in ay u doodaan ama ay tababar siiyaan wariyaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan talo u soo jeedinayaa insha Allah in aysan ka fariisanin hawsha ay hayaan in dadaalkooda ay si laba jibaaraan ay dardargeliyaan. waxa ay hadda tagayaan gobolada dalka kuwa horena waa ay soo mareen. waxaan u rajeynayaa insha Allah in dadaalka ay hadda wadaan ay si laba jibaaraan. mar walba waxaan ku boorinayaa casharada ay bixinayaan waa kuwa aad u faa'iido badan. waxa ay kaga duwan yihiin casharadii hore oo aan soo qaadanay. casharadan waxa ay ku qoran yihiin warqad iyagoo daawacanayna la siinayay meelaha dhiganay si annaga laftirkeena biri dadka ka dambeeya aan u gaarsiino casharada maanta ayna siisay SGS. waana ka mahadcelinaynaa kun iyo kow jeer. ururka saxafiyiinta SGS markii ugu horeysa waxaan uga mahadcelinaynaa casharada ay nagu siiyeen afka Soomaaliga. wali inta aan training ka soo qayb galay kama aan arkin cashiro lagu bixinayo afka Soomaaliga. waa waxa ugu horeysa aan uga mahadcelinayo. tan kale waxaan ku baraarujinayaa inay halkaas ka sii wadaan sida ay dadaalada ugu jiraan kobcinta saxafiyiinta ee ku soo gobolada iyo sidoo kale dalka Muqdisho. waxaana leeyahay halkaas ka sii wada dadaalkiin waan ku mahadsantihiin sida wacan aad noo soo gaarsiiseen cashiradan aan wax badan ugu tiri doono kobcinta dhanka shaqada saxaafadda. SGS waxaan leeyahay tababarkan waa tababar aan wax badan kaga faa'iidnay halkan lagu soo koobi karin. marka waxaan leenahay tababaradan oo kale mar kale nagu soo celiyaan aan ku codsanaynaa anagoo markaasi waqti walba u diyaar ah inay traineedan oo kale nagu soo diraan. sidoo kale hadda waxaan nahay dad aan markaan aan haysanin qalab ay ku shaqeystaan aan sida qalabka oo kale inay naga taageeraan aan ku codsanaynaa SGS waxaan u soo jeedinayaa inay tababar kale in ay noo keenaan magaalada Johor. ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed SGS horta marka koobaad waxaan mahad gaar ah ugu celinayaa macallimiintii juhdiga noo bixisay walow ay dhibaatooyin kala duwan ay ku mareen magaalada Johor caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle si ay tababarka ay noo siiyaan ay u dhabar adeegeen. alxamdulillah waxaan dhihi lahaa hatiiraayunina hatiigsamina wiligiina horumarkiina si wariyaasha badqabkooda iyo aad aga fikirtaan had iyo jeer inaad u sii laba jibaartaan. SGS waxaan ka codsan lahaa in ay ku soo celceliyaan seminaarada magaalada Johor waayo maxaa yeelay wariyaasha aad ay u liitaan oo maxaa yeelay waxaad dareemi kartaa in badan saddexda maalmood ee aad joogtaan ustaadiinta casharada ay bixinayaan way ka dareemi karaan iyo qaababka ayaga ee aga jawaabayaan. wariyaashan waxaan leeyahay nin walba macnaha hamiyu leeyahay hamigiisa sii wato ayaa laga caajisan. saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan aqoontoodana oo sii kordhado. wariyaasha Soomaaliyeed waxaan u dirayaa baaq
kuwa hadeertaani maanta oo seminaarku soo xirmay in markaasi sida waxa loo baray loo siiya casharada inay sideeta ugu dhaqmaan sababta markii wariye tahay halka ay joogtid in badan waxa laga yaabaa caburin in markaasi lagu saaro aan markaasi aan qof xor aan noqon karin marka waxa loo baahan yahay inaasi waajib ah xaq ah ku dhimatay sababta maanta hadii noqotid mid oo cashirka la qaato baalmaro waxa taa markii wixii la soo baray nin oo gees maray marka ana khaasatan iyo kuwa aan ila midka waxaan ka codsanayaa in sida waajibka oo casharada u qaateen ugu dhaqmaan si waajibka u rabto saale hada maanta aad war sax ah aad marka ninka aad adiga markaasi si u jecel u sameeysid waxaan noqonaysaa wariye jil waxaan leeyahay sida saxda ah wararka loo diyaariyo waan inaan si sax u qaadan casharada aan qaadanay wariyaasha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dhan walbo waxa laga yaabaa inay caqabado kala kulmaan waxaan leeyahay u adkaysta shaqadiina ka adkaada noqdo dad oo mar walbo dhexdhexaad ah hasameeyeen ay xasho waxaan idin rajaynayaa in mar walbo wariyaasha Soomaaliyeed ay guuleystaan wariyaasha Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa midnimo waa in la midooba haddii aad midoodaan horumarka aad leedahay darajaadka waad gaaraysaa marka waxaan dhihi lahaa mar koobaad iyo mar labaad in la midoobo mid kale waxaan dhihi lahaa inay ayaka dhaxdooda aysan isfaquuqin ay ka shaqeeynin waxyaabaha wariyaha kaleento ee saameynta ku yeelan karo haddii wariyaha uu ceeb uu leeyahay in ay si gooni ah ay ugu sheegaan ay qabsadaan waxyaabaha dhiba kaaga imaanaya ka fogow in ay dhahaan aysan la wadaagin dadka kaleento ee u fahmayo in ay dhibayaan warbixinta uu soo diyaariyay amba qoraalka barafiilkiisa uu ku soo daabacay wariyaasha wallahi waxa uu talin lahay in talada loo soo jeediyaa ay qaataan dadkii waxa bari lahay oo u imaaday inay soo dhabeeyaan wariyaasha Soomaaliyeed waxa ugu baaqayaa in ay meel ka soo wada jeestaan midnimo sinaan haddii meel ay ka soo wada jeestaan maama hore waxay ahayd quraansho aruurti bulac way jiidaa wax aqabada ma ku imaan karaan haddii meel ay ka soo wada jeestaan ay midoobaan idaacadaha way kala fikir dugnaan karaan TV-yada sidoo kale laakiin dhibaatada Soomaaliya ka jirto waa in meel ay uga soo wada jeestaan si horumarka ay u gaaraan ama hadafka ay hiigsanayaan hal cadow ay leeyihiin halka cadow ha u midoobaan insha Allah